jaamacadda Soomaaliya ayaa kulamo ay dib isugu arkayaan ardaydii ka qalin jebisay kulliyadda caafimaadka waxay ku qabteen magaalada Muqdisho. Wariyaha Cabdirasaaq Cumar Maxamuud ayaa faahfaahinta warkan inoo soo diray. kulankan cashada ayaa ahaa mid ay dib isugu arkayeen maamulka macallimiinta iyo ardayda jaamacadda Soomaaliya gaar ahaan takhasusyada ay ka kooban tahay kulliyadda caafimaadka. Cabdirasaaq Maxamed Cabdi madaxa kulliyadda caafimaadka dadweynaha Public Health ee jaamacadda Soomaaliya ayaa waxa uu sheegay in ay UNISO guul u tahay inay arkaan arday ay iyagu lacag la'aan wax ku soo bareen kuwaasi oo markii ay shaqaysteen kadib iyagu doonaya inay ardayda aan qarashaadka awoodin ay ka bixiyaan dhaqaalaha ay wax ku baranayaan. qof kasta oo jaamacadda Soomaaliya ka qalin jebiyay oo shaqo helaa oo ii soo sheegay inuu shaqo helay wallahi billahi naftayda waxa helay waa uga farxad doona waxaan aad ugu farxay marka dad anaga fiiga iska bixin waayay jiro ka bixin jiray maanta ay shaqooyin lacag badan heleen taas aad ugu farxay wallahi way soo waceen dad badan oo fiiga aan la dhadhici jiray maanta waxay dhaheen anaga ciyaal fiig ka bixino anaga dad badan wacd Dr. Maxamed Daahir kaaliyaha xafiiska waxbarashada ee jaamacadda ayaa sheegay in jaamacaddu ay soo kordhisay waxbarashada sare ee postgraduate oo ay la kaashanayso jaamacada ku yaala dalka dibadiisa. waxaa in badan oo adig idin kamid ah u heelantiin postgraduate inaad sameysaan ama magister inaad sajishaan jaamacaddu waxay diyaar u noqon doontaa insha Allah Rahmaan arday kasta oo raba inuu banaanka waxbarasho u aado inay ka saacido jaamacadda una fududeyso wax kasta oo awoodi karta qolada aan banaanka aadi karin insha Allah Rahmaan bisha soo socota ee January ee sanadka cusub 18 ka u dhalanaya jaamacaddu waxay furi doontaa qaybo postgraduate gaar ahaan qaybo badan oo la xiriira caafimaadka iyadoo la kaashan doonto jaamacada ku yaala banaanka ayadoo hadda imaan doonaan laba jaamacadood jaamacadda Imbarara iyo jaamacadda Makerere oo ay labadaba ka kaashan doonto postgraduate-ka qaybta caafimaadka. Cabduqaadir Cabdullaahi Nuur waxa uu ka mid yahay ardayda kulliyadda caafimaadka ee sanadkan dhameysatay heerka koowaad ee waxbarashada isaga oo kaalinta koowaad u galay ardayda kulliyadda caafimaadka qaybaheeda kala duwan waxaana maamulka jaamacaddu ay ku abaalmariyeen inuu ka mid noqdo macallimiinta jaamacadda sanadkan ay qaadatay. Soomaaliya jaamacadda Soomaaliya waxaan filayaa dadka ka shaqeeya macallimiinteeda guud ahaan haddii aysan wada dhammaynba inay u badan yihiin dadkii ka aflaxay oo jaamacadda ay soo saartay. ardadii u dambeysay ee ka qalin jebisay jaamacadda Soomaaliya ayaan ka mid ahay gaar ahaan kolleejka caafimaadka waxaan halkan ka qirayaa marka jaamacadda Soomaaliya inay ugu tabarucday ama ay siisay laba fursadood fursad koowaad oo ah fursad waxbarasho iyo fursadda labaad oo ah fursad shaqo. ugu dambeyntii waxaa Soomaali Cable la hadlay qaar ka mid ah ardayda oo aan weydiiyay waxa ay kaga dhigan tahay xafladan ay u sameeyeen maamulka jaamacadda. كفاهم كرتا جامعة الصومالية waxay ka turjumay magaca wadanka Soomaaliya maadaama ay wadato magaca Soomaaliya oo tahay University of Somalia sida darteed waxay cadeyn u tahay jaamacaddu inay ka turjumayso magaca wadanka marka maadaama dadkan loo dhiibay fariin oo wax la baray oo waxa la rabaa inay wax ka bedelaan bulshadii dib ugu laabtaan ka darteed waxa loo arki karaa waa arrin dardaaran jaamacaddu inagu dhiirigelinayso waa arrin aad u fiican horta ani ahaanteedana waxa u arkaa arrin oo ma sha Allah walagu farxi karo maxaa yeelay arday iyo jaamacad iyo maamul inay xaflad qalin jebinta loo dhig ee kala tageen haddana dib isku imaadaan waxay muujinaysaa ardayda iyo maamulka xiriirka ka dhaxeeya inuu yahay mid wanaagsan. Cabdirasaaq Cumar Maxamuud, Somali Cable TV, Muqdisho.